waxaana wanaagsan ku soo dhowaada sheekada xiisaha badan ee dhimashan ka xiga inaan dib kuu soo jeclaado. sheekadan waa sheeko jacayl, waa sheeko qabsatay lamaane Soomaaliyeed. sheekadan ayaana mid xumbaarsan murugo, tiiraanyo iyo marxalado kala duwan oo dhanka nolosha ah. sheekadan waxaa qoray Daalac Daarshood, waxaan idinla socodsiin doonaa wariyaha arrimaha bulshada Gacal Ayman. sheekadan maalin walba Jimcaha waxaad kala socon doontaan janaalkan YouTube-ka ku leeyahay ee Gacal Ayman. si aad u noqoto qofka ugu horeeya sheekadan hela, fadlan subscribe saar bartan aan YouTube-ka ku leeyahay ee Gacal Ayman, sidoo kale la wadaag asxaabtaada. sheekada ayaana ku bilaabanaysa sida tan. Anise waa gabar qurxoon oo ka soo jeeda qoysladan, hanti iyo sumcadna Ilaahay siiyey. Anise waalidkeed wuxuu ahaa mid adag, markastana koontaroola xaaladda gabadhooda. waalidka Anise waxay la jecel yihiin gabadhooda inay heer ka gaarto dhanka waxbarashada, sida waalidiinta kaleba u jecel yihiin in ubadkoodu noqdo kuwa wax barta mustaqbal wacan leh. Anise waa gabar qurux badan, waa gabar dheer oo ilka siman oo qurux badan leh. dhowl cadeyskeeda ayaana ragga inta badan saameeya. Anise waxay wax ka baran jirtay mid ka mid iskuullada magaalada Muqdisho. waxayd gabar inta badan lagu soo doono gaari laguna qaado markii iskoolka loo wadayo. waxaa soo dooni jiray aabbaheed, waxayna ahayd gabar ladan, dhibdhan uusan ka muuqan, iskana faraxsan mar waliba. Anise gurigay degan yihiin waxaa ku batay in habeen kasta uu u soo dhaco tuug. markii dambe waxay go'aansadeen qoyska guriga in guriga loo yeelo waardiye si looga nabad galo tuugada cadaysatay inay habeen kasta dhac u geystaan. waxaana waardiye looga dhigay guriga wiil mar dhow laga keenay baadiyaha kuna tabaalaysan magaalada Muqdisho. wiilka waxaa lagu magacaabaa Ridwaan. Anise waxay durba ka heshay wiilka waardiyenimada loo keenay gurigooda, waxayna u qaaday jacayl. habeen kasta waardiyaha waxay u samaysaa casho aad u macaan badan, dhandhankeeduna sarreeyo. Anise looma ogola inay jikada gasho. wax allaale waxay u baahato cunto ah waxaa u soo diyaarisaa booyaasada amba gabadha guriga ka shaqaysa. Anise waxay ku andacootaa inay cuntada iyada karisay ka jeceshahay cuntada ay kariso booyaasada. waalidka Anise mar kasta wuxuu buriyaa uu ceeriyaa booyaase kastoo cunto fiican u karin Anise. laakiin Anise jikada waxay u gashaa sidii ku kasban lahayd wiilka waardiyaha ay jacaylka u qaaday. uma quurto inuu cuno waxay karisay gabar shaqaalaha. waalidka Anise wuxuu ogaaday in gabadhooda xiriir la leedahay waardiyaha guriga. Ridwaan wuxuu ku qanacsan yahay Anise maadaama ay tahay gabar wanaagsan oo noloshiisa isbeddel degdega ku keentay. xitaa Anise waxay siin jirtay wiilkan biil gaar ah oo ka duwan kan ay bixiyaan waalidkeed. Ridwaan markan uma muuqdo nin waardiyaha marka loo fiiriyo labiskiisa iyo muuqaal ahaantiisa isbeddel weyn ayaana ka muuqda. waalidka Anise waxay ku baraarugeen in gabadhooda xiriir aan caadi ahayn la leedahay wiilkan ay guriga keensadeen. Anise waa lala taliyey, waxaana loo sheegay in isaga harto ninkan waardiyaha. haddii nin u baahatana la siin doono nin iyada dhanka nolosha ay isku mid ka yihiin. Anise hadalka waalidkeed uma sii dheg taagin, mana tixgelin, waayo waalidkeed wuxuu caqabad ku noqday jaceylkeeda. waxayna Yasmo iyo Quursi ka dhigeen ninka ay jeclaatay. xiriirkooda wuxuu sii ahaa mid qarsoon Anise iyo Ridwaan. laakiin Anise waxaa ku batay fikirka ay u qabto Ridwaan. way yara caatowday, jirkeeda ayaa isdhimay. waalidka Anise waxay go'aansadeen in waardiyaha la buriyo si gabadhooda uga nabad gasho wiilkan mashaqada u keenay. Ridwaan waxaa laga ceeriyey gurigii uu waardiyaha ka ahaa. Anise kuma farxin tilaabada qaadeen waalidkeed. waxayna tiri, haddii Ridwaan la buriyo aniga guriga waan isaga tegayaa. talada guriga mar kasta waxaa iska leh waalidka, laakiin waalidka mar waliba rabitaankaaga ma maamulo, qalbiga waxaa haga dareenkaaga. Anise si qarsoodi ah ayay lacag u siisay Ridwaan, waxayna ku tiri, ku iibso moobeel, ha ka walwalin lacag, aniga ayaa kuugu soo shubayo, mar kasta igu soo wargeli xaaladaada. Ridwaan markii uu soo iibsaday moobeel, isla markiina waaba laga dhacay moobeelkii. sidoo kale lacag uu haystay uu urursan jiray waa laga dhacay. nolosha Ridwaan waxay noqotay niyad jab iyo xaalad aad u adag uusan meelaysan karin. Ridwaan markii qabsatay dhacdadii, isla markiiba muusan u wicin saaxiibtiisa Anise. wuxuu ka xishooday inuu dhaho waa lay dhacay. wuxuu ka baqayey in Anise u aragto inuu been sheegayo, uu doonayo inuu lacag been kaga qaato. muddadii Ridwaan xishoodka lama aamusnaa, waxaa cakirimay xaaladda Anise. Anise markii weyda Ridwaan waxaa la soo darsay walwal iyo walbahaar badan. habeen kasta waxay ka fikirtaa
xaaladda uu ku sugan yahay iyo qaabka uu ku nool yahay. waxaa la gaaray xilligii imtixaanka dugsiga sare ee magaalada muqdisho. anise waxay maraysay galaaska ugu dambeeya dugsiga sare. haddii imtixaanka ku baasto waxay ka qalin jebinaysaa dugsiga sare, waxayna isku diyaarinaysaa inay jaamacad gasho. waalidkeed wuxuu u diyaariyey waxbarasho in loogu diro dalka bakistaan. nasiib daro anise kuma baasin imtixaankii, wayna ku dhacday. sanadkii ugu dambeeyey anise qalbigeeda waxaa mashquuliyey jacayl. macallimiinta iskuulka markii saxayeen maadooyinka anise warqadaheeda waxaa ku qornaa sida tan: ridwaan, aad ayaan kuu jeclahay. maxaa kugu dhacay? miyaad i nacday? haddii aad nooshahay iga soo wac taleefanka guriga. waan kugu dhiman rabaa aboowe, macaana iga soo gaar. waa kuu ildaranahay. I love you ridwaan. macallimiintii markii arkeen natiijaday ka keentay imtixaanka waxay la noqotay filowaa, maadaama anisa ahayd gabdhaha u fircoon dhanka waxbarashada. la yaabayeyse ku noqotay in anise ay ku baasiyeyso imtixaanka dugsiga sare. macallimiinta iskuulka ayaa ka shiray dhacdadan, waxaana loo gudbiyey maamulka iskuulka. waalidka anisa markii maamulka soo wacay ayna maqleen xaaladda gabadhooda, hooyada anisa waxaa qabsaday shoog iyo naxtin, waayo kamaysan filayn in gabadhooda ay ku dhici doonto imtixaanka dugsiga sare. halka anise aabbaheed uu ku mashquulsanaa fiisi diyaarinta. anise waxay diiday inay sii dhigato iskuulka ay ku dhacday, maadaamaay ku baqayso inay ku camirtaan ardayda kale oo la yidhaahda damiin ayaa tahay. warqadii imtixaanka looga jawaabayay waxaad ku qortay erayo jacayl iyo waxyaabaan loo baahnayn. waalidka anisa waxay go'aansadeen inay beddelaan taleefanka guriga, iyagoo ka cabsi qaba in mar uun uu soo wici doono waardiyaha. maalmihii la beddeli raba taleefoonka waxaa soo hadlay ridwaan. wuxuu ka soo wacay taleefoonka guriga. ridwaan ayaa codsaday in taleefanka loogu dhiibo anisa si uu la hadlo. ridwaan waxaa la weydiiyey qofka uu yahay. waxa uu sheegay inuu yahay macallimiinteeda dugsiga sare, uuna doonayo in gabadha dhiirogeliyo lana hadlo. waalidka anisa waxay aamineen warka ridwaan, waxayna u waceen anisa iyagoo odhanaya waxaa ku wacaya mid ka mid ah macallimiinta dugsiga sare. anise ciilay u qabtay macallimiinta ayay tiri, intay imtixaanka igu rideen miyay haddana ay soo wacayaan? ma la hadlaayey mana doonayey ee taleefoonka ku damiya. anise mooga fursaddan qaaliga waa fursad dahabi ah. haddii ogaan lahayd ruuxa soo wacaya maalinka nolosheeda waa iftiimi lahayd, qalbigeedana wuu xasili lahaa, murugada haysana way ka yara degi lahayd, wayna kala warqaadi lahaayeen gacaliyaheeda. waalidka anise ayaa ku yidhi ridwaan, iyagoo u malaynaya inuu yahay macallinka: macallin, gabadha way hurudaa, habeen dambe xilliyadan oo kale soo wac. taleefoonkana waan iska beddeli doonnaa insha allah. nambar cusub ayaan qaadan doonnaa qora macallimin. kanaad nagala hadlaysid waxaa nagu dhibay dhallinyaro aan wanaagsanayn. macallin, waad nagu mahadsan tahay sidaad gabadheenna u dhiirigelinaysid. assalaamu calaykum ayaa lagu yidhi. ridwaan aad ayuu ugu farxay siduu nasiibka u leeyahay inuu ka war helo in telefoonka guriga la beddeli rabo. wuxuu go'aansaday in habeenka xiga uu soo waco anise laakiin nasiib xumo ayaa dhacday. ridwaan wuxuu soo wacay anise xilligii ballimeen waalidkeed, waayo haddii uu ka soo hormaro ballanta waalidka wuxuu u fahmayaa in macallinka ay farigu godan tahay calaashaan arrin kale uu wato. markii uu soo wacay waxaa ka qabatay anise hooyadeed. ridwaan si xushmad iyo sharafi ku jirto ayuu u salaamay hooyada. kadib wuxuu codsaday inuu la hadlo gabadha. waa loogu dhiibay. anise farxad darteed ayay la aamusi weyday markii maqashay codka ridwaan. iyadoo qaylinaysa ayay hal mar la soo booday: aboowe macaane, gacaliye ma nooleed? intay joogtaa? waan kuu xiisay. intaa weerayaa markii isku dabxijisay si aan kala har lahayn. waalidka anise wuxuu dareemay qofka soo wacay gabadhooda inuu yahay wiilkii lagala cararayay. anise hooyadeed waxay kala jartay fiilada telefoonka. talow maxaa dhici doona? xaalkuse siduu noqon doonaa? la soco qaybta labaad ee sheekadan oo xiise gaara leh. sheekadan si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee mar walba hela, sabskribe saara janalkan youtube-ka ku leeyahay gaclayman. sidoo kale saaxiibadaada gaarsii oo sii sheer gareey. waad ku mahadsan tahay dhegeysiga sheekadan.